رئيسل وزراء Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa maanta shir gudoomiyay shirka khamiislaha ee golaha wasiirada oo maanta looga hadlay arrimo ay kamid yihiin amniga qaranka iyo sidoo kale qorshaha isbedelka qaranka iyo qodobo kale waxyaabaha sida aadka xooga loo saaray waxa kamid ah arrimaha amniga maadaama arinta Jubbaland iyo sidoo kale dawladda dhexe ee maalmihii u dambeeyay aad u kacsanayd dawladda Soomaaliyana ay deegaanka Ras Kamboni ay ciidamada u tira badan halkaasi ay ku daabuleysay dawladda shalay waxa geysay ciidamo tira badan oo ka tirsan kuwa xooga dalka Soomaaliyeed iyo iyadoo horey halkaasi u joogeen hore dawladdu waxay u sheegtay ciidamadaasi in halkaasi ay u geynayso sida ay ula wareegi lahaayeen goobaha ay ka baxeen ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee ATMIS waxaana ay sheegeen in halkaasi amnigooda ay sugayaan Ra'iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre oo horey u hadlay waxa uu yiri maamulka Jubbaland ciidamadii waxa ay ka soo saareen deegaanadii ay haysteen oo isku horfadhiyeen ururka Al-Shabaab waxaana uu sheegay in deegaanadaasi maadaama la soo baneeyay ay ciidamada xooga dalka Soomaaliya ay dib ula wareegayaan halkaasina ay sugayaan amnigooda maamulka Jubbaland waxa iyaguna hore u sheegeen inay joojiyeen wada shaqayntii kala dhaxaysa dawladda dhexe ee federaalka waxaana sidoo kale ay amarro ay soo saareen ay ku sheegeen in deegaanka Ras Kamboni muddo 48 saacadood ah ay uga baxaan ciidamada la keenay dawladda federaalka Soomaaliya waxaana dhamaatay muddadii dawladda maamulka Jubbaland ay u qabteen madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta sharciyo soo saaray waxaana uu sheegay in amniga maamulka Jubbaland uu yahay mid wax badan laga qaban doono Ra'iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa waxa uu sheegay in magaalada Kismaayo lagu daabulay ciidamo uu ku tilmaamay in loogu talagalay in la dagaalamaan kuwa xooga dalka Soomaaliyeed oo dhawaan loo geeyay deegaan kamid ah dalka si uu la wareegaan goobaha ATMIS ay baneeyeen waa sida hadalka u dhigay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya dawladda federaalka iyo maamulka Jubbaland ayaa hawada waxay isu marinayeen hadallo iyadoona dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan maxkamadda gobolka Banaadir ay soo saartay warqad lagu soo xirayo madaxweynaha maamulka Jubbaland ee dib loo doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyadoona maamulka Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo maxkamadeeda iyaduna ay soo saartay warqad lagu soo qabanayo madaxweynaha Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud arintaasi ayaa si aad loo hadal haya waxa sidoo kale siyaasiyiinta iyo sidoo kale ay ku kala duwan yihiin dadka saamilida siyaasadda aragtina ay ku kala qaybsameen kala taageerida dawladda dhexe iyo maamulka Jubbaland mas'uuliyiinta mucaaradka qaarkood waxa ay taageereen maamulka Jubbaland gaar ahaan dib u doorashada madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyaguna dawladda federaalka Soomaaliya ku dhaliilay in ay dana gaar iyadu leedahay ay doonayso inay ka fulsato maamulkaasi laakiin waxay ugu baaqeen in miiska wada hadalka la isugu yimaado madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo markii dib loo sii daartay waxa uu yiri waxaan diyaar u nahay dawladda hadii iyadu diyaar u tahay inaan la fariisano oo la wada hadalno waxaana kadib dawladda ay saarto culeys badan oo ay ku soo rogtay maamulka Jubbaland sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ugu dambeyntiina madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa waxa uu saxiixay xeerka ciidanka booliiska ee dawlad goboleedka Jubbaland oo ay soo diyaarisay wasaaradda amniga gudaha maamulkaasi iyadoo sidoo kale madaxweynaha maamulka Jubbaland ee dib loo doortay uu wareegto ku soo saaray hirgelinta hagaha qorista sharciyada iyo sidoo kale siyaasadaha maamulka Jubbaland oo ay soo diyaarisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka maamulka Jubbaland ayaa iminka waxa uu muuqdaa maamul si caadi ah u wata howlihiisii maamuleed gaar ahaan marka dib loo sii doortay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo dawladda dhexe federaalka Soomaaliya ay sheegtay inaysan aqoonsanayn sidoo kalena hadii Axmed Madoobe uu rabo in dawladda dhexe uu soo dhiibo kana tanaasulo siyaasadiisa ku aadan in dib u doorashadiisa madaxweynaha maamulka Jubbaland